Munaasabadan oo ay soo agaasimeen mas'uuliyiinta maamulka Dhuusamareeb oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweyne ah ayaana ujeedadoodu waxay ahayd taageeridda go'aanadii dhowaan ay qaateen Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug. Madasha waxaa ka soo qayb galay guddoonka caasimadda Galmudug, agaasimaha madaxtooyada Galmudug iyo qaar ka mid ah madaxda golayaasha dowlad goboleedka Galmudug. Ugu horeyn waxaa goobta madasha munaasabadda ka socotay ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waa mudane Cabdi Xaanshe Caroole. run ahaantii waa maalin taariikhi ah, farxad weyn ayay noo tahay haddaan nahay bahda caasimadda inaan taageerno go'aanka madaxweynayaashaas oo run ahaantii Soomaaliya door weyn ka qaatay, qaasatan madaxweynaheena Axmed Cabdi Kaariye sanadihii hadda ugu dambeeyay kaalin mugla ayuu ka qaatay nabadeynta Soomaaliya. Gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geed Qorow iyo qaar ka mid ah madaxda bulshada rayidka oo kulanka ka qayb gashay ayaana bogaadiyay go'aanada ay qaateen madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamulada Hirshabelle iyo Galmudug ee ku saleysnaa ilaalinta xasilinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo in la gaaray isfaham wada ogol ah in dalku uu aado doorasho. Marka waxaan runtii aad iyo aad u taageeraynaa go'aankaas, waxaan ka dhigaynaa in fadqaalo dambe iyo mushkiladu soo laabtaan. waxaan rabnaa oo Soomaaliya ay rabtaa in doorasho la aado, qof walba huba qofkii nasiib u yeesha ummadda hagaya. madaxweynaha hadda joogana cid gaar ah hadda uga dhow ma lahan, ilaahu wada heli kara ma haddana sidii waxaan rabaa in aan aramaduna madaxweyne inaad xaaladii aad ballan qaaday ummadda uga farxiday oo aan dareemayno xaladan ugu dambeeyay kulamadii aad waday inaad sii wado oo aysan kula sirbaxan markaana kale xaalad aad u caakiranta go'aan maanta ay qaateen qorqor iyo guudlaaw runtii wadanka maanta hal la badbaadiyo annagana dhammaan haddaana shacabka Dhuusamareeb Galmudug waxaan taageersanahay madaxweynayaasheena runtii dadaal badan oo juhdiihow maray waayo arag kasi waayo arag waay. Cismaan Macalin Xasan oo ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Galmudug oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in Galmudug ay ku baaqayso xasilooni siyaasadeed isla markaana ay diyaar u tahay inay qayb ka noqoto si wadista dadaalada xalka lagu raadinayo. Marka waa soo jeedinayaa in nabadda la taageero, in madaxdeen isxakameeyaan, waa la soo dhaafay waqtigii dadka wax kasta loo sheegi jiray, dadkaana waa soo jeedaan. runtii aad u soo jeedaan dadka indhahoodu aqoontii kacday, caqligii kacay, khibradii kacday, qaxa la soo arkay, dhibaata la soo arkay, meel dambe oo la aadahay ma dhimana. marka waxaan leeyahay insha Allah taala baaqasan anuguna taageersana waa soo dhaweynaa, waa mahadsantihiin, jazakumullahu khayr. Ali Tali Cabdi, Hirshabelle TV, Jowhar.